haddii aad tahay reer samson waxaan kugu bishaaraynaya inaad heli karto ama aad la soo degi karto one UI 8 ha aniga waan la soo degay adigana waxaa laga yaabaa in updateka uu diyaar kugu yahay oo uu kaliya sugayo inaad la soo degto ood ku raaxaysto isticmaalkiisa dabcan one UI 8 waxyaabo badan ee lagu soo kordhiyey featureskaas mid ayaan muuqaalo uga samayn doonaa laakiin muuqaalkan oo midka ugu horeeya waxaan soo xulan doonaa featureka ugu weyn ee aniga qof ahaan aan ka helay wax badanna ka tari doona isticmaalka telefoonkaaga laakiin intaana featureka gudaha u gelin maadaama features kale oo badan oo one UI 8 aan kuu soo bandhigi doono waxaan rabaa inaad xaqiijiso inaad nagu soo biirtay si featureska kale aadan u seegin sidoo kalena ha ilaawin inaad muuqaalka jacayl u reebto una dirto saaxiib samson isticmaala one UI 8na sugayey markii telefoonka androidka la joogo dabcan waxyaabahu kaga wanaagsan yahay iphoneka waxaa ka mid ah in aad 2 application ama 3 halkaaga shaashad ku isticmaali karto sax waa multitasking laakiin one UI 8 waxaa lagu soo kordhiyey qayb muhiima oo multitaskinka ama in aad dhowr barnaamij ku isticmaali karto telefoonkaaga sii qurxin kara una qaadi kara next level waxaa loo yaqaanaa 90-10 view 90-10 view waxa uu ku suuragelinayaa in labada barnaamij aad halka mar shaashad ku wada isticmaalayso aad 90% hal barnaamij ku furato 10% hal barnaamij ku furato barnaamijka 10% ah marka aad taabato uu soo weynaado oo 90ga uu qaato kii 90gana uu 10ka qaato taa macnaheedu waxay tahay in barnaamij weyn uu halkan diyaar kugu yahay oo aad isticmaali karto mid yarna uu kor ama hoos diyaar kugu yahay oo keliya uu sugayo hal taabasho si aad u weynayso oo midka kalena uu u yaraado siduu ku leeyahay featurekan fadlan nagula wadaag qaybta hoose ee faalooyinka hana moogaanin in featureska kale aan soo wado